deegaamada hiba saaxil iyo berbera waxaa deegaamada bullaxaar iyo berbere ka soo yeedhayaa dhacdooyin dhiilo leh oo dadkayagu soo sheegayaan waxay la noolyihiin cabsi dadkiiyo dunyadiiba waxaa dul hoganaya diyaarado haybtooda la garan waayey waxaanu doonaynaa dowladdu inay noo sheegto diyaaradahaas waxay yihiin oo dadkayaga cabsida la nool loo sheego waxay tahay haddii aanay nidaamka dowladnimadu iftiimin karaynin waxa deegaanka bullaxaar ka dhacaya dadkayagu way ka jawaabi doonaan tamar kastoo ay leeyihiin waxaan ku xigsiinayaa uun berbera waxaan leeyahay bogcadaan jeclaa iyo bartii aan ku ababiyo beled laygu koriyaay berberay ma nabad baa baadku ha joogee biyihii ma haynaa waxaan ku xigsiinayaa dhacdadii shalay guurtida ka dhacday waxaan u tacsiinay suldaan Ismaaciil suldaan Cabdiraxmaan suldaanka guud ee reer Gabiiley suldaan wixii shalay guurtida ka dhacay ma ku bari doonaan ninka aad tahay ma doonan doontaa raggaagii si aad u suuro geliso damcaaga waxaan doonayaa inaan taabto reer awdal oo shalay iyo maanta baanu ka shaqaynayno inay saamilayda siyaasadda Soomaaliland noqdaan reer awdal waxay kala garan laayihiin cidda wax u diidan iyo cidda wax la doonaysa shalay ururada iyo maanta xisbiyada waxaan u taaganay inay saamigii dalkan awdal ku lahayd qaadato waxaan u diyaarsanay inay musharaxa kulmiye qaataan oo saajin lagu dhiso reer awdalow isaaqnimada maalinba nin baa jara ninka talada hayuunba isaaqnimaduna ka go'daa annagu musharax madaxweynaha laydiin diyaariyey shalay ururada laydiin diyaariyey doorka dalka ku leedina siyaasadda ina qaadataan baa laydiin diyaariyey mase taqaanaan cidda wax ku diidan iyo cidda wax kula doonaysa waa iga su'aal weeye بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد gabadhaasi waxay ka hadashay waad maqlayseen Soomaaliland waxay qarqarinaysay banaanka soo dhigtay diyaaradahan ku dhacay aaga Bulxaar maalin weyd ee duqeeyay dad waxay lahaayeen Soomaaliland baa sameynayso Soomaaliland may ka hadasho iyaga sameynayo laakiin waxay soo tartay cabsida haysata dadka Soomaaliyeed cabsida haysata dadka reer Soomaaliland halka ku dhaqan inay diyaaradahaasi habeen alla geliyaba ay mataqaanay dhulkaas saaxil intay marka dul maraan guuxoodii aan laga seexan karin taasoo ku tusinaysa in Soomaaliland ay waxay gacmahooda ku galabsadeen ku keensadeen in maanta ay guranayaan wixii la lahaa war ka jooga ka daaya la lahaa inay maanta ay arkaan maxay sheegaan maxay dhahaan waxa la bulshada hor imaadaan u sheegaan dhahaan diyaaradahan annaga halka ka keenay diyaaradahan waa kuwa annaga ilaalin diyaar maba ahaba maanta arkaysi nimankii xoutiyiinta Sacuudiga duqeynayeen oo maxaa de waftiga nabi khalkhal galiyeen bay lahaayeen oo ka yimaada Iran hadda Iran iyo Mareykanka caawa dambeysay Mareykanka wuxuu yiri way dhamaatay xilligii mataqaanay aan Iran u qabanay saadaradeed marka Hormuz aan la wareegna mataqaanayaan doonayna haddii weerarkaas oo bilowdana halkanna way ka bilaaban sababta koonfurta ee Soomaaliland heshiiska oo la gashay wuxuu ahaa in ayagana meeshan ay ka helaan saldhigyo waaweyn ay ka sameystaan kadibna halka ay howlgalkoodii ay ka sii wadaan bay yihiin saadaradeed marka howlgalkii halkan Soomaaliland laga sameyn lahaa uu diyaarsan yahay iyagana marka way ogyihiin kaaga darana marka dawlado badan yaa haddana waxay sameynayaan inay ka faa'iideystaan fursadaas sida mataqaanaa hadii Sacuudi noqon lahaa hadii Turki noqon lahaa hadii dawladahan Carabta farada badan dhamaantood waxay diideen halka in saldhig marka ka sameeyaan ma rabaan saadaraadda marka waxay door bidayaan inay khalkhal galiyeen amnigaas oo dadkaas ay imaan diyaarad lagu sii daayo doroos lagu duqeeyo iska tuuro cid ku dhacdo daroon iska socoto yaa imaartadi masqarxinaysa
yaa lasoo dayn. waxaa kaaga daran jabhado yar ba ayagana mataqaana yaa bilaaban oo duurka geli oo ayagana dhihi nimankaasaa mataqaana ka hortegeyna. carab baa lacag ku siin iyo ummado kale. marka ninkan Ciro ma faa'iiduu usoo kordhiyey mise dhibaato? isagoo marka hore dhibaato u keenay oo ah halka ictiraaf ka doonayeen caalamka dhan 194 dowlad inay ka helaan ay doonayeen inay hal dowlad isku koobeen. waayo Ciro uu sheegay wuxuu yidhi waxaan sameeyey uu yidhi waxaan diray waraaqo aan u diray caalamka oo dhan, 2 dowlad baa iisoo jawaabtay, midna waa tan aqbashay, midna waxay tiri ma awoodno. saa darteed waxay kutusinaysaa marka inuu meel cidlo ah inuu soo istaajiyey oo sagxad meesha u dambeysay. saa daraaddeed marka meeshii la rabay marka inay dhahaan wartan hawshaa ma geli karno wuu dhex istaajiyey sooma. see looga bixi karaa marka? ma laga bixi karo. nimankan kufaydarta heshiiska waa lala galaa laakiin lagama bixi karo. haddaad ka baxdo ciqaabteedaad leedahay. marka hore maxaa ku geliyey baa lagu dhihi marka taasaa lagu haystaa. saa daraaddeed marka hadda gabadhan waxay caddaysay in dhulka ay cabsi badan ka jirto, in shacabka ay seexan la'yihiin. waayo dhulka iyada waa dhulka idin kasoo jeeda wey, waa dhulka Muuse Biixi uu kasoo jeeda wey. saa daraaddeed marka iyaga waxaa ka saaran mas-uuliyad gaar ah oon Ciro ka saarneen ba ka saaran. Ciro mas-uuliyad ka saaran tahay Somaliland dhan, laakiin gaar ahaan tan baa mataqaana kasii saaran. waxaan la yaabay Ciro 2 muuqaal waxaa isu keenay oo sanad gudihii ah ama 2 sanad gudahood ah, oo midna uu leeyahay dadka Somaliland waa 3 malyan, midna uu leeyahay waa 6 malyan. yaa hal marba intuu boodiyo 3 malyan ku darsado. mushar Muuse Biixi uu wuxuu dhahay shacab 3 malyan gaaraya uu ninkaa ayuu xukumaa. markuu kufaydartay wuxuu yidhi shacab 6 malyan gaaraya ayuu xukumaa. xitaa waxaa weeye dadka qofka been wuu sheega, laakiin waxaa fiican beenta inay xoogaa yar suugaysan tahay, yar qurux badan tahay ayaa fiican. laakiin inay beentaadu noqoto mid iska hor imaanaysa oo iska hor keenaysa sidii mataqaana xasan sheekh maxamuud kale lama rabo. hadda xasan baa arkaysaa hadal baa hadda ku hadlaya, isla markiiba haddana daqad kadib hadalku ka hadlaya kii hore way kala duwan yihiin, shaqo isku mala. markaynaas taas aad saa noqotana mataqaana wax qurux badan mataqaana. waxaa fiican qofka inuu hadalkiisa toosan yahay, laab uusan jirin, oo aan laga soo qaban fara badan. laakiin markii waxaad uu isku hor imaado waa markastoo fashil aad cagaha aad la gelisa wey.